نظافة السيدة دقاس ومقر arrimaha bulshada aad iyo aad maanta la iclaamiyay nadaafadda gobolka Banaadir waa hawl muhiim ah loo baahnaa marka waxaan u mahadcelinaa dhammaan haweenka u istaagay inay jidadkooda nadiifiyaan oo ka muuqato sida ay uga go'an tahay sida ay si hagar la'aan ugu shaqeynayaan dalkooda qof kastoo Soomaaliyeedna waxa laga rabaa dalkaaga waxa u qabatid waa wax ajarna ka helaysid waana mid aad maaragtay wadankaaga wax ugu qabanaysid nadaafadu waa iimaamka barkeed gobolkan waxaan rabnaa inuu noqdo gobolka ugu nadiifsan caalamka caasimadan Muqdisho waxay ahaan jirtay bariisamaadkii wadamada adduunka caasimadaha ugu nadiifka badan ugu amniga badan nadaafadu inaan soo celino waxay ku jirto annaga danteena caafimaadkeena sidaas daraadeed shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan waxaan ugu baaqaynaa in nadaafada si xoog leh oo kal ilaaba oo hagar la'aan uga qayb qaataan haweenkan Soomaaliyeed oo runtii u taagan nadaafadana la dhiirigeliyo
wax walba loo qaban karo loo qabto annaga ka maamul ahaan waxaa naga go'an dhammaan haweenkaas oo har iyo habeen u taagan inay jidadkooda nadiifiyaan inaan annagana abaalmarin siin doono dhiirigelin doono sidoo kale waxaan ka codsanaynaa ganacsatada Soomaaliyeed inay kaalin ka qaataan nadaafadda dukaan walba iyo guri walba haddii inta ay gurigooda hortiisa marka waxaan aad iyo aad shacabka ugu baaqaynaa nadaafaddu waa muhiim annagana ka maamul ahaan waxaa naga go'an caasimad nadiif ah oo shacabkeena iyo carruurteena ku koraan in la helo ما أوتي ولا ما بيلاو استبي تطلع بيلاو أطلع بيلاو حلقة لا تجي ما عصيول خمسة